just to know that, when we're talking, and just to hear a little bit about English, not Somali, but I just wanted to explain a little bit why we're here and what we're trying to do. There is a film that is coming up, and Nabil here is running the show. He's the producer and the director, and the film is coming out tomorrow, and I believe tomorrow night. This film is a great movie, so we just wanted people to know that, just to come and have a look, and we hope that you're going to enjoy the movie. So adiga wax wanaagsan aad soo bandhigto definitely waxaad la imaan kartaa horumar waa la gaari kartaa awood waa heli kartaa iyo wax ka wanaagsan laakiin hadda anaga filimkan waxaan aad ugu dadaalnay quality-ga inaan nadiifino oo aan kaamiradan ku duubeyna kaamirooyin qaali bay ahaayeen si ay sawirkii ay u noqoto sawir shineema camala sidoo kale soundku iyo wixii oo dhan marka dadaashid adiga kii hadda waa kan ugu horeeyo kan labaad kan saddexaad kan afraad insha Allah waxaan jecelnahay inaan ma aragtay mise Oscars mise Grammy aan ku helno waxaan noqonaysaa waxaan rabaa inaan dadka u sheego waxaan la socday markaad bilaabaysay filimka dadkii isku keentay iyo muhiimadda si kugu aad adiga inaad filimka soo saarto marka horta waxaan aad iyo aad kugu hambalyeynaa horta dadaalkii aad gashay habeen walba maalin walba dhalinyarada ula hadlaysay filimkii inaad dadkii aad horta inta anaga naga gadin inaad dadkii sameynaa ka gado inaad maxaa la horumarkii aad ka soo bilaawday meesha ugu hooseysa ka soo bilaawday iyadoo dhibaato ay jirto oo ah Soomaalida aysan badankood aaminsaneen filimkan iyo waqti dheer buu qaatay insha Allah waa xasuustaa ani adiga markaas la joognay waxaan jeclahay influencer baa gadiga 2 sano ka hor mis hal sano bar ka hor ma aan kuna film baa rabaa inaan sameeyo waxaas loo baahan yahay marka waxaan waa wax iska waqti dheer bay qaadataa balaakiin waxa loo baahan yahay markii ummadii loo soo bandhigo inaysan meesha raqiiska ah mise easy way aysan raadin wixii inta yimaadaan ay taageeraan kooda joogo maanta Manchester haduu London u yimaado filimka inuu daawado taageero ka wanaagsan ma helaysid maanta award Hollywood aan leesiyay waxa iga wanaagsan ayadoo ummadii intay soo baxday ay timaado filimka daawato ay tiraado wallahi filimkan filim ay caawiyay waa xaq diineed iyo xaq maxaan ku raaddaa ay sheegeen dhaqameed ba labadaba laakiin aan ku sheego filimkan horta inta markaad ii sheegtay telefilna rabana soo saaro waxaan u qaatay inuu film wanaagsan noqonayo waxaan mar imaaday Dragon Cut markaa sameysay comedy show markaa sameysay comedygaasna aad aan uga helay oo waxaan wali la sameeyay marka inaan maxal lahaa aan arintaas la kulmo horta waxay ahayd inay aragti kale igu soo taayayso hadda taas sameyn karto hadda wax ka weyn oo sameyn karta aadiyada dal imaan karto marka waxaan rajeynayaa sidii comedy looga helay in kana aad looga heli doono ilaa insha Allah definitely comedy laftigiisa soo socda Prince Abdi iyo aniga hadda waxaan isla soo wadnaa laftigeena Pirates Comedy Club 2 ayada laftigeeda oo aan jecelnahay inaan maaragtay DVD ahaan u soo bandhigno marka waa sugeena insha Allah ifraax waxaan filayaa mikrofonkii waan ka xoognay balaqsiga filim waa soo baxay filimka dadka qaar baan tusnay sida hadda dadka awoorkana siiyay filimkii way arkeen way daawadeen waxaan isku raaceen inuu yahay filimka ugu wanaagsan ee Soomaali soo saarto sanadkan markii ay awoorkii lagu siiyay mise haddana markii ay arkeen historyga meesha u socday ama sawirka meesha u socday wacyigelintan u baahanahay dhalinyarada inaan wacyigelino waxay noo garteen inay siiyaan achievement award which is higher organization kana aad baan maaragtay laftigooda ugu mahadcelinaynaa filimka ma aha filim jacayl iyo filim waxaas ku saabsan waa filim wacyigelin ku saabsan heblayga ku jeclahay Soomaalida filimaanta soo saarto badana wuxuu u badan yahay waa jacayl iyo naag laga tagay oo la jeclaaday iyo midoo kale jeclaaday iyo waxyaalo jacayl asagoo dhan wada jacayl marka anaga waxaan jacayl ma aha waa wax wacyigelina filimaanta wacyigelintana hadday awood heshay maxaa heshay lama yiraahdo waxaa la yiraahdaa horoha u socoto awoodka dadka markay bixiyaan markii filimka la fiirsado waxaa jira festival la tago oo film festivalsa haddaan film festival aan geeno oo festivalkii uu noqdo filimka ugu wanaagsan awood baa la siiyaa marka awoodka waa badan yihiin Hollywood laftigiisa filmaan soo bixin ama oo banaanka aan Europe imaanin bay Hollywood waxay bixiyaan Oscars ma aha waxa loo siinayana maxaan ku raahdaa filimkii waa soo baxay dadkii way daawadeen waxa loo siiyay filimka basically hadii uu qofka daawaday ama filmmakerada hadday daawadeen ama dad kale oo organizationka camal hadday daawadeen
awood waa la siin karaa. waxaan rugleeyahay wax kaliya ku darsado filmaan badan ayaa waxa lagu bixiyay awaaj lagu bixiyay oo waxa loogu bixiyay ma aha in filimkii uu soo baxay laakiin in dad panelka fadhiyo ama dad xiiseeyo filmaanta ama dad arrimaha ururada ama community ku jiro ay dadka dadaalo wax u qabtaan horta marka ugu horeyso waxaan idinka aan la soconin dadaalka uu Nabil soo galay oo intaas uu soo waday filimkaana uu ku soo bixiyay dadka marka ururada wado ama dadka activists-ka ah ay arkeen Nabil orodka uu ku jiro iyo dadaalka uu wado iyo filimka xataa micnihiisa iyo sidoo wax uu qaban doono dhalinyarada inay tahay mid awaad lagu siiyo kadibna waxaan rajeynayaa dadka dhamarkii wada fiirsan inay fahmi doonaan awaadkan wax loo siiyo waa mahadsantahay qofkii jecel ila soo xiriiro hadduu Facebook galo wuxuu ka helayaa filmmaker Nabil Noor Facebook uu ka heli karaa haddii kale wuxuu ka heli karaa dhigama dhaqo Facebook uu ka heli karaa sidoo kale oo email igu soo diri karaa mise message haddii kale nabil@joycetv-somali.com haddii kale nabil_6@hotmail.com meelo badan laakiin aniga waxaan dhihi lahaa joycetv-somali.com gal contactiga fiiri ama Facebook soo gal Nabil Noor ku qor so way helaysaa si walba insha Allah. Somalis doing cartoon films. We want that's what I want to see. I want to see cartoon films. I want to see other films. If you can create sci-fi anything like Avatar, but we need to like every time support the anything that comes out, and that way we can generate money and make money, and then we can do something bigger than that. If you support, So at least they know when the 2 or 3 years markay 2 sano 3 sano bis 4 sano jiraan ciyalka hadii ay yaqaanaan the difference between English and Somali oo ay maaragtay Soomaaligoodina ay fahmayaan dadkan aan wadan kala joogin inay yihiin dad shisheeyeen ay garanayaan maaragtay dhaqankoodii iyo waxoodu way ceshan karaan balaakiin hadii aad ciyalka tiraad okay ayaga ku darsan wax walba la noqo dama markay dhaqankoodii iyo Soomaalinimadooda ay loobayaan marka waxa loo baahan yahay dad badan oo Soomaali ah inay maaragtay ay xasuusiyaan caruurtooda iyo dhalinyaradooda iyo maxaan ku raahdaa iyo ehelkoodaba inay maaragtay yihiin dad Soomaali ah. inshallah goorma la iibsan karaa CD'yada ka sameyn kartaa CD'yada inshallah waxaanu jecelnahay adiga aakhirka dhamaadka 2011 inuu noqon doono hadduu ilaahay yiraahdo labada markaas unbuu CD'yada soo baxaya laakiin waxay ka horeeyay dadkun baan waxaan tuseynaa goobahan ku tuseynaa way iman karaan oo ay maaragtay si shaleem ahaan baan u tuseynaa. Okay haye walaal mahadsantahay sida filimkaaga usoo bandhigi lahayd iyo qaabka usoo bandhigi lahayd hadday jecel yihiin dadka Soomaaliyeed inay daawadaan filimkaas waxaan ka codsanaynaa inay Nabil la soo xiriiraan community organization-kooda sida filmaanta meel loogu dhigi lahaa u fargarayaan so then all the way Nabil inuu kasoo tago London towards Sheffield email ha jeceshihiin laakiin CD-yaasha iyo waxay noqon doontaa sanadka dambe insha Allah tacaala hadduu Allah nagu gaarsiiyo dhammaadkiisa ilaahan og laakiin inuu Nabil ka dhawaajin doono sabaahan amaan deganahay London oo kale dadku waan u habeen karnaa west east south meesha noqoto waan kala garanaynaa laakiin south de gobolada dadka degan sida Birmingham iyo Leicester iyo waan habeen karnaa dad ambassador oo jooga laakiin Sheffield iyo Milton Keynes iyo de gobolada sidaas oo kale haddii uu jiro qof maaragtay xabaabulo mise promoter mise organization jiro oo Soomaalida isku keeni kara hadday jiraan hadee hanala soo xiriiraan anaga maaragtay wixii koostiga ah mise hoolalka koostiga ku baxaya ama xayeysiisyada la xayeysiinaya anaga bixinayna marka ayaga haddii ay venue-ga noo soo sheegaan anagana waan keeni karnaa oo ay dadka gaarsiin karaan insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kalena demand baa jiro ay dadka sameyn karaan demand-kaas haddii uu demand-ka bato website-keena waxaa ku jira meel ay demand-ka ay dadka buuxin karaan meel walba ay adduunka joogaan haddii ay demand-kaasi ay bataan oo sidoo kale hadda waxaan aragnaa waxa number 1 ku jira waa London marka u fiirsid joycetv-somali.com
dhamaanka waxaa number 1 waa waxaan jeclahay inay tahay London, number 2na waa Mareykanka iyo aragno Toronto iyo Minnesota iyo way marka qofka hadduu meeshaas kale arag oo galo oo aragno dadka reer Southampton inay number 2 ku jiraan markaas ayaan ku xujinaynaa oo anaga raadinayna booskiyo goboladii waan tegaynaa marka waxaan idinkula dardaarmaya inaad maaragto dhamaanka gashaan wadan walba iyo meel walba aad joogtaan aad buuxisaan magaciina iyo dhamaankiina iyo wadamada joogtaan nin walba markaas uu dhamaankaasaan ka arkaynaa oo dadka ugu tira badan aan geenaynaa marka London hadda ayada ugu tira badan waxaan jecelnahay kan iyo koowaad iyo labaad inaan London ku qabano kadibna aan dhamaanka meesha ay ka jirtaan insha Allah haduu ilaahay farax waa gartay Nabil aad baa u mahadsantahay